ugaas cabdirashiid bilow ugaas xandulle iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta soo gaadhay degmada Luuq ee gobolka Gedo isagoo ugaaska safar shaqo ugu maqnaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa waxaa si wada jir ah ugu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha degmada Luuq maamulka degmada ururka dhalinyarada iyo kale ururada bulshada rayidka qaybaheeda kala duwan waxaana ugu horeyn warbaahinta la hadlay ugaas cabdirashiid bilow ugaas xandulle oo dowladda federaalka Soomaaliya ka codsaday in la soo gaarsiiyo mashaariicaha horumarineed ee dowladdu ka wado caasimadda dalka hawlo shaqo baan xamar ugu maqnaa ilaahay ugu soo celiyay ama annagoo dhan ugu soo celiyay baan u mahad celinaynaa waxaan kaloo u mahad celinaynaa shacabka degmada Luuq ee soo dhaweyntanada aan u kala harin sida maamulka taliyaasha ciidamada ururka dhalinyarada gabdhaha qaymaha badan ee sharafta badan nabadoonnada ugaasyada iswaraysiga uu noo dambeeyay iyo shirir gaaban ama shirir dhaadheerba waxaan rabaa inaan arrin yar aan taabto gobolkan Gedo waxa weeye ma aha jasiirad dul cidla intaana waxa weeye ku yaalo waxa weeye wuxuu ka mid yahay wadanka Soomaaliyeed mashaariicda intaana waxa weeye in wax weyn laga qabtaa la rabaa dowladda federaalka waxaan ka codsanaynaa in ay soo kordhiso mashaariicda intaana waxa weeye in la badiyo dowladda Sheekh Shariif ilaa dowladda hadda jirta oo mashaariicda waxaad moodaa gobolka in ay hoos ay ahayd waxaan rabnaa in kor loo qaado waxaan codsanaynaa in la horumariyo gobolka insha Allah wixii kale oo dhiman intaan ka doona waxa kale oo aan rabaa inaan cod dheer aan ku yiraahdo maxay ahayd xildhibaanada ka soo jeeda gobolka Gedo in cod dheer ay maxay ahayd ugu doodaan gobolkooda intaana si wax loogu qaban lahaa dadka reer Luuq oo sida sharafta badan loo soo dhaweeyay waqti badan ku dhumiyay qorraxdana in badan taagnaa iyadoo diyaaraddu daahday salaadiinta sida ciidamada xoogga sida gabdhaha maamulka degmada si kasta lafaha ay kala yihiin dhan walba yihiin waa soo dhaweynaynaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin dib baynu ka wada mushaqaloon doonaa maxamed barre axmed oo diinta qaanan anjal iyo qaano degmada ku dhisay weeye 93 way ugu dambeysay haddana waa ku soo noqday marka waxaan oran maayo waxa way qabiil hebel oran maayo deegaanka Luuq inta deegaan oo dhanba waa salaamaya saantiisan waan ku salaamaya bacda salaam wixii warbixin ahna dib baan iskaga soo dhaweynta waxaana loogu sameeyay degmada Luuq ee noo sameeyay bulshada rayidka kala bedelan aad baan u soo dhaweynaynaa insha Allah biidnillaahi alkariim naga socdaalka degmada Luuq uu ahaa wixii warbixin insha Allah biidnillaahi alkariim bulshada la wadaagi doonaa waana soo gudbin doonaa inta noo imaaday uu hogaaminayay ugaaska cabdirashiid bilow xamdulle ayaan soo dhaweynaynaa annagoo ah odayaashii degmada Luuq iyo waxa garadkooda hooyooyinkooda culmaadiinka dhalinyarada ayaan soo dhaweynaynaa ugaas ku soo dhawow gacmo furan iyo kalsooni iyo soo dhaweyn wacan waxaan salaamaynaa waftiga noo imaaday oo hogaaminaya ugaas Rashiid Bilow Xadulle iyo ugaasyada la socda odayaasha wax garadka la socda waa idin soo dhaweynaynaa boqolkiiba boqol kalsooni ku imaada gacmo furan laab furan wadankiina waa kan soo dhawaada waxaan soo dhaweynaynaa ugaaska ugaas cabdirashiid bilow xamdulle ayaan soo dhaweynaynaa maanta meeshaan ku soo dhaweynayaa laboorka iyo waftiga la socdo oo balaaran maanta meesha waxaan u taaganahay inaan ugaas ku soo dhaweyno ugaaskan soo dhaweynaynaa waan ku mahadsanyahay annagana waxa weeye qorraxdan u taaganahay bahda reewaq ma hashaaday baahi ku qabaa عبد الولي يوسف عابي تي في عالمي Somali News Luuq Ganaane